iyadoo sanadihii la soo dhaafay abaar baahsan oo galaafatay nolosha dad iyo xoolaba ay ka dhacday geyiga Soomaalidu degto gaar ahaan Somaliland ayaa deegaanka fadhiisay oo ku yaala gobolka Togdheer wuxuu martigeliyay kumanaan qof oo ku caadhoobay abaartaasi dadka kaamkan degan ayaan lahayn goobo caafimaad kuwo waxbarasho iyo meelo kale oo ay ka helaan biyaha waxa kale oo dadka kaamkan degan ay noo sheegeen inaanay wax taakula ka helin dawladda Somaliland iyo dadka kale ee muxsiniinta ah ee reer Somaliland maranu saaka u kurgalnay xaaladda dadkan tabaalaysan ayaa waxa indhaha iyagu qabanayeen hooyooyin tiro badan oo daa isla markaana diifaysan waxaana ay dadkaasi noo sheegeen inaanay haba yaraatay wax daryeel caafimaad ah helin salaamaya calanka dawladda waa salaamaya madaxweynaha waa salaamaya dad baanu nahay halka ku jooga 2000 iyo maxaan yahdaay bad waxa na soo gaaray laba hay'adood dadka wixii ay wax siiyeen Allah u barakeeyo uu siiyay inta yadi kalena aqladan ku hoos baqtinahay taayadii baan u liidanaa waxaan doonaynaa in dawladdu ay marka hore ay noo soo dirto dad wafdi na dhex marta ay noo soo dirto baqtiga iyaga ogaata oo hoosna loo eego maxaan idhaahdaay suuliye ma lihin waxbarasho ma lihin ciyaalka halka maxaan idhaahdaay dadka kaga waxbarasho beelay malaha 500 oo qof weyn hadana 600 baa yar yar caruurta ah iskuulka dhigan lahaa u baxay maanta aflix ilaha hadii wax lagu hayo waxaan dirayaa baaq anagoo ah dadka abaaruhu tabaalaysan heleen ee barakacayaasha ee meel walba iskaga yimi dhammaan gobolka Togdheer hareer kastaba ha ahaatee waxa aan leeyahay halka waxaan u nimi inay dawladdu waxna tarto markii xooluhu naga bixin dawladayada barkii hore waan tabantaabin jirnay waan u codayn jirnay xoolahaanu ku baarash gareyn jirnay imkana ma hayno xooli way naga bixeen haddana anagoo gaajoonayna ayaanu codaynay meel kasta waa la noo rabay meel kasta wadana waanu soo noqonay sidii baanu u sugaynaa waxa la leeyahay waxaan ka aragnay ma jirto waxay nala tahay inay indha naga laabteen indha hoos looga rogeen inay indha noo soo jeediyaan hoos noo eegaan na soo taban taabiyaan na soo taakuleeyaan waxa iyaga halka degan waxaanu isugu jirnaa dan yar iyo barakacayaal wadamadoodii adigu markaa ma dadkii barakacayaasha anigu dhoqoshiba la yar anagu waxaanu ka hadlaynaa danta qaxoontiga oo ay tahay dadka xooluhu ka bixin ee barakacaha meesha iskugu yimid oo cid walba marka waxaanu baaq u diranaynaa dawladda wixii ilaahay noogu dhiibo walba ilaahay baa bixin dawladda Musabbix Cabdi iyo madaxda gobolka Togdheer baa u diray waxaan u dirayaa Musabbix Cabdi Xadiid iyo maxaan idhaahdaa hay'adaha caalamka oo dhan iyo maxaan idhaahdaa dadka yaga tijaarta ee walaalahaya ah kuwa qurba joogta waxaan leenahay intaba baahan haysa walaalayaal laga soo caawiyo ducaale waa oday daaweyn waana dadkii xooluhu ka dhamaadeen ee abaartii caydhaysay balse hadda wuxuu ku sugan yahay deegaanka fadhiisay waxaana uu la jiran yahay cudurka faaliga Amina Saleebaan oo ah inantiisa ayaa ka waramaysa xaaladda uu aabaheed ku sugan yahay laba sano halka imka jiifayba labadaas sano buu jiifay labada rabadaan halka uu jiifay waxa laga soo qaaday saraar baa laga soo qaaday waxa kale oo aan wax ka weydiinay xaaladda deegaanka fadhiisay guddiga deegaanka waxaana nooga warbixiyeen sida ay ugu baahan yihiin waxyaabaha asaasiga ah sida waxbarashada biyaha iyo caafimaadka idinka yimaada xagga dawladii xagga dawladda waxaan laga soo garay wax jidda booyada biyaha qaraar hal booyad baa idinka soo garay biyaha qaraar laga soo garay muddo intee lag baa halka ku sugnay muddo 2 sano labadaas sanadood dawladda waxa ka sheeganaysaa inay hal booyad oo biyaha idin timaado halka booyada ku soo garay وحرو إذا كي ما ده أما قوت الضرورة هتنا أما بيها هتنا ما ترى الدولة اللي جالسوا كرامة سيدا الشغل اللي بها يدود بقى يدوب مر إيديتهم هيدا هسدد إنتهلك بكفارة قاتل وهي واحد كفارة قاتل تبى بقول إيش اللي تضغطنا أفر بلوسي سافر بلودين في الكسي مقطع يقطع هيدا كان واحد تبى لحظة من الشدات قسم واحد سدح بقول يعني واحد مثل كاسة سدح بلوب كاسة سدح بلوب يدوم مقري إما كبيش على السود أي ركاب واسع سيجوا dhammaan dawladda iyo wasaaradda waxbarashada horta waxaan leeyahay wixii indhaafaan ay ka gooyaan haddii la danaynayo ummadda Soomaaliland danaynayso meeshan waa meeshay ka doorteen waxa weeye 2,000 qof baa ka doortay
حل يماد مدحوينها من سبيح عبد وحنولان هي وحي دنين يا أمد الصومالي لان حان إن يمادان بنفعنا يقولوا هذا كوار كانوا واحد كم حمود درنا كعرايا بان لنا كعرايا سود وهذا اللي هنا وحكوار باغ وحنقدر يا إلهير برسها إلهير مدحويني وحي أمد الصومالي لان يوحد يصيد دنين يو كعرايا oo kaalaya meeshan dhiin ku alla wax noo yimo caafimaad ma hayno xarun caafimaad ma laha iskuul ma laha waxbarasho ma laha suuliyaal ma laha hooy la galo ma laha waa aragtaa meeshu noocay u egtahay qof walba indhihiisa u macallina baahiyaadka meesha yaalana ilaahay u bay xisaabsan yihiin intaas wax alla wixii bini'aadamku ku noolaan jiray hadday waxbarasho tahay hadday suuli tahay hadday manfac la cuno tahay hadday hooy tahay midna ma haysto dad باقي ودمبينتين الحكومة ودري وحوي أن مدة سوماليلاند وجوه مدة مدحوينها سوماليلاند وإنا أمة السوق الجاران وإنا ويا مادان وإنا إيران دلاتنا يبقى هذا هيستا وحوي أن ورقي إن واحد قارسن عندها قارسن هالك أمة سيد الدكتورين من مسؤولهم deegaanka farfariisay waxa ku nool caruur tiro badan oo qoysaskoodu ka soo yaaceen abaarihii nasiibna uma helin inay waxbarasho helaan balse waxa ka jira deegaanka laba malcamadood haba yaraatay waxaan ka jiro wax iskuul ah kastaba ahaatee deegaanka farfariisay ayaa wuxuu ku yaalaa waqooyi bari magaalada Burco waxaana uu gabaad u noqday kumanaan qoys oo ka soo cararay miyiga markii xoolihii ay haysteen ay abaartii dhaafisay isku soo wada duubo dadkan ayaa waxay baaq u dirayaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi madaxda gobolka